baadhitaankii labaad ee lagu sameeyay Allah u naxariistay meydka marxuum Professor Cali Khaliif Galayd oo lagu baadhay magaalada Muqdisho kadib markii uu ku geeriyooday magaalada Jigjiga 8 bishan October ayaa shaaca laga qaaday. waxaa la xaqiijiyay in Professorku Allah u naxariistay uu geeriyooday cudurka COVID-19. ehelada marxuumka madax dhaqameedka iyo garaadada kala duwan ee Allah u naxariistay Professor Cali Khaliif Galayd ayaa xaqiijiyay in uu geeriyooday cudurka COVID-19 kadib markii baadhitaan labaad lagu sameeyay markii laga soo dejiyay magaalada Muqdisho. xaaskii uu ka tagay Professor Cali Khaliif Galayd Maryam Cabdi Biixi oo iyaduna warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay sheegtay in cudurkaasi uu geeriyooday isla markaana ummadda Soomaaliyeed waxa ay ka codsatay in la joojiyo propagandada laga sameeyay geerida marxuumka oo marar badan dadka qaar ay sheegeen in sababo kale uu geeriyooday. magacayga waa Maryam Cabdi Maxamed Maryam Cabdi Biixi baa la yaqaanaa. waxaan ahay xaaskii marxuum Cali Khaliif Galayd. waxaan imid Muqdisho oo inaan ka qayb galo aniga iyo caruurtayda iyo eheladiisa gabadhayda Caaisha iyo Warsame iyo Saafi oo Cali la dhalatay iyo Cabdiqani Galayd oo asna Cali la dhashay. kulligeen waxaan halkan u nimid inaan ka qayb galno duugti. waxaan halkan hadda aan rabaa inaan ka soo jeediyo mahadnaq gaara iyo mid guudba oon u soo jeediyo dadkii Soomaalida ahaa ee ehelada qaar ahaa qaarna Soomaali caadi ah iska ahaa oo Cali Khaliif Allah u naxariistay aad iyo aad isku xilqaamay dadkii uu Cali la joogay ee kilinka oo uu meesha uu ku xanuunsaday ahayd Jigjiga ee sida sharafta leh u hayay isku xilqaamay. annagoo dad badan ay ahaayeen waxaan soo qaadayaa Mustafa Maxamed Cumar oo ah ninka u taliya kilinka. waxaan kaloo mahad weyn ayadan u celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aniga si gaar ah ii soo wacay markuu Cali go'ay igana codsaday inaan u ogolaado inuu si qaran Cali u duugo. hadaladiisii waxaa runtii kamid ahaa inuu yiri Cali waa abtigay waa ninaan aad u qadariyo waxaan jeclaan lahaa duuq qaran inaan u sameeyo. aniga iyo caruurta iyo eheladiisa walaalihiisa dhanna waan ogolaanay. geesta kale garaadada iyo madax dhaqameedka kala duwan ee Professor Cali Khaliif Galayd Allah u naxariistay ayaa iyaguna waxa ay xaqiijiyeen inuu u geeriyooday cudurkaasi isla markaana waxa ay si weyn ugu mahad celiyeen madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida iyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay sheegeen in mas'uuliyad weyn ay iska saareen dareelcayntii tacsida iyo tiiraanyada iyo murugada lahayd dhammaan qaybaha bulshada ummadda Soomaaliyeed deegaan kastay ku nooshahay waa mahadinaynaa. waxaan si gaar ah u mahadinaynaa dawladda Soomaalida ee xarunteedu tahay Jigjiga madaxweynaheeda Mustafa Maxamed Cumar shacabkeeda odayadeeda dhaqanka xukuumadeeda. waxaan mahadinaynaa dawladda federaalka Soomaaliya ee madaxweynuhu horeeyo ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaare ku-xigeenka gudoomiyaasha golayaasha aqalka sare iyo aqalka shacabka. inta haddaan ka soo gudbo waxaa nasiib darro ah iyadoo geeri nagu dhacday dhimasho timid qabiilo iyo qoys iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay ehelba dhibi soo gaadhay arrintii in propagando la geliyo aad iyo aad bay raantii dhimasho kale nagu noqotay. professorka ilaahay waqtigiisii yaqiintii baa u timid waqtigiisii baa dhammaaday. xanuunka COVID-ka ilaahay sabab uga soo dhigay. ilaahay hadduu kuu roon yahay halkana waa lagu baadhay halkaana waa lagu baadhay. professorka Allah u naxariistay baan waxaan ka maqli jiray isagoo yidhaahda hebel raganimada meel xun buu ka raadiyaa qofka uu maagayo. siyaasadda in meel xun laga raadiyo maaha. meela ayan siyaasaddu gelin oo aan laga raadin oo aanba loo dhowaan baa jiro oo dad geeriye ku timid in geeridoodii gacanta la geliyo oo la maroojiyo oo la xumeeyo oo calool xumo lagu rido aad iyo aad baan uga xunnahay. Cali Khaliif nin qaran buu ahaa nin qabiil ma ahayn ra'iisul wasaaraheennii hore u ahaa
waxaa laynooga baahan yahay inaanu u ducayno maanta inaga mudan yahay ilaahay waxaanu uga baryanaa inuu ilaahay qabriga u nuuriyo ummadda soomaaliyeedna waxaanu ka codsananaa ciddii ay qadaafo ay kala gaartay inay soo cafiyaan marxuumka maanta waa inaga hooseeyaa waxaan rabaa inaan aanu halkan uga mahad celino ummadda soomaaliyeed oo sida qarannimada maaragtay u aastay oo jinaasadiisii meel kasta isaga yimi maaragtay professor cali khaliif galaydh allah u naxariistay professor cali khaliif galaydh oo ku geeriyooday da'da 78 sano jir ayaa waxaa la sheegay inuu noqonayo ra'iisul wasaarihii labaad ee Soomaaliyeed ee u geeriyooday cudurka safmarka ee dunida saameynta weyn ku yeeshay ee COVID-19 Nuuridiin Culi Joog Universal TV Muqdisho